munaasabadan oo xarigga looga jarayay laguna daahfuriyay mashruuc indhafiiqis baaris iyo daweyn caafimaad laguna siinayo muraayadaha aragga oo kiyaalayaal oo lacag la'aan ah kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan 10,000 oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata iskuulaadka ku yaala magaalada Muqdisho oo uu soo qabanqaabiyay maamulka isbitaalka Jazeera iyo maamulka jaamacadda Aadan Cadde ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. barnaamijka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Aadan Cadde dhakhaatiir ka socotay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Dr. Maxamed Khaliif oo ka mid ah dhakhaatiirta indhaha ee ka howlgala isbitaalka Jazeera ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed. wax kale ma aha barnaamijkan waxa waaye in bax caafimaad ay baxaan ay tagaan iskuul ardayda dhigato kamid iskuulaadka waddanka ama magaalada kadib iskuulkii ardaydii loogu tagay baaritaan loo soo suubiyo ardaydii kamid ee baaritaankaas ku soo baxo ee aragtidooda yaraata ama problemada xilliga aragtida laga soo helo la soo refergareeyo kadibna treatment loo soo gudoomiyaha qaybta indhaha ee jaamacadda Aadan Cadde Dr. Ali Khalifa ayaa sheegay in barnaamijkan ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan si bilaasha ardayda Soomaaliyeed. marka midda aad loo sheegay doctorka uu sheegay waxa kamid ah ambaliyada qofka asagoo waxa waqtigii loo baahnaa aan qaadan wakiil inuu maartay shirkadii dhaco danna hadhow waxba laga qaban karo taas waa mid kale aad saameyn loogu yeelato oo xataa keentay inaan kulliyadda caafimaadka indhaha ee Soomaaliya optometry ka dhaxfuro jaamacadda Aadan waxay ahayd gabar hooyadeed la socoto ayaa maalin waxay noogu timaaday isbitaalka waxay tiri gabadhan toddoba iskuul ayaan geeyay waa damiin waxay baranaysaa dan markii aan araggii wixii ka qaadana waxaan aragnay in 80% araggeeda uu leeyahay soo marka qof araggiisa 80% leeyahay wax ma baran karaa waa maya. Dr. Ali Baashi oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa soo jeediyay in la ballaariyo howlaha wax looga qabanayo bulshada. mashruucan kale ku soo kordhin lahaa ardayga yar markuu iskuulka bilaabayo waalidka waxa uga horeeya macallinka la rabaa inuu ogaado ardaygaani inuusan wax arkayn deedna uu waalidka u soo sheego yiraahdo waalidka igu yar waalidka uu sheego yiraahdo ilmaha si fiican wax uma arko. gudoomiyaha jaamacadda Aadan Cadde Professor Cabdulqaadir Axmed Mahad ayaa sheegay in barnaamijkan ay ka faa'iideysan doonaan ardayda dugsiyada sare iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay. qofka optometry markuu barto waa uu leeyahay inuu daaweyn sameeyo waa uu leeyahay inuu wakaalada diyaariyo inta badan dadku waxay u badan yihiin intaas u badan yihiin inta qaleenka gasho waa inko marka shaqadaas waa shaqo ama hawl ka banaan ama gaab jiro oo waddanka ka banaan waaye bahda waxbarashadan inay xoog saaraan ayaa muhiim ah. wacyigelinta uu Dr. Ali Baashi noo sheegay iyo intii kaleeto oo asxaabta noo sheegi doonaan waa noo gareysanaynaa. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.